shirkan jaraa'id maanta uu ku qabtay magaalada Baran wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee dowladda Puntland Cabdirashiid Cali Geelle ayaa waxa uu kaga warbixiyay ayax ku habsaday deegaanada ka tirsan gobolada Sanaag iyo Bari ayaxaas oo koran u soconayay ayaa deegaanada uu ku habsaday ee gobolka Sanaag waxa kamid ah Cawsane ceel la helay Midigale Rad Xubeera Gumar Baran Hadaaftimo iyo deegaanada xeebaha ee gobolka Sanaag taariikhdu markaa hay 28 bishii 2019 waxa ay wasaaradda beeraha iyo deegaanka iyo isbeddelka cimilada safar ku soo kala bixisay meelo badan oo kamid ah meelaha uu ku soo habsaday ayaxaas oo ahaa marayay muddo hadda 3 bilood ah markii horreysay waxa naga yimid kii ugu horreeyay xilligii guga ee dhinaca Yemen halkaas uu fariistay xeebaha Laasqoray Ceelaayo Bari ilaa uu ka gaaray xagga buurta oo hadda isleenay wuxuu ku maqan yahay dhinaca buurta halkaana wuxuu dhigay waxaantiina wali ma dalaacin xilligan aan hadda inuu kala hadlayo oo waxa 6 maalmood ay tiimku u kurgalayeen meelaha uu dayaxu ku habsaday waxa kamid ahaa gobolka Sanaag meelaha ay kamid yihiin Hadaaftimo Baran Cawsane ceel la helay Rag Gumar Weerafo meesha la yiraahdo Ceel Daahir iyo meelo kale oo badan ayaxaasi wuxuu gurguurayaa oo naga yimid dhinaca waqooyiga wuxuu gurguurayaa kooxo isagoo ah gobolka Bari oo tiimku u kurgaleen waxay markay marayeen meelaha la yiraahdo Armo Ceel Daahir Faluuja Jiingada Kalabayr tiimkaasi waxay ku arkeen ayax aad iyo aad u tiro badan oo ah kii kooxaha u guureeyay ee ka yimid xagga waqooyiga tiimku hore u sii socdeen waxay gaareen xagga xeebta ee gobolka Bari waxay u leexdeen xagga Sanaag oo xeebta ah waxay sii mareen meelaha Qow Ceelaayo Laasqoray Dooftille markii ay ka soo noqdeen tiimku waxay haddana dib ugu noqdeen gobolka Bari sida Daroor iyo meesha la yiraahdo Armo iyo Kubdhaxaad iyo Ufayn inkastoo ay Ufayn gaarin laakiin gaareen meelaha soonka ku hareeraysan miyiga tiimkaas runtii waxay ahayd shaqadooda ku warkalka iyo kantaroolka sida ay u soconayo qaabka uu u badan iyo sida uu badan yahay meelaha uu tagayo dhinaca uu jahaysan ayaxaasi waxay u jahaysan yahay dhinaca iyo bariga fog ilaa Qandala hadda waxa xilligan aan la hadlayo 2 daqiiqo 3 daqiiqo ka hor ila soo wacayay meelaha ay ka bixiyeen Ufayn iyo bariga fog hadda Baargaal iyo Xaafuun ay kaga camarayeen ayaxaasi inuu soo gaaray waxa la yiraahdaa Gregorius waana nooc runtii aad u waaweyn runtiina tiimku waxay ka soo diyaariyeen sawirro iyo qaabku soconayay iyo meelaha markuu tago iyo sidoo waxyeelada u geysanayay runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa tiimka ay wasaaradda beeraha iyo ka dawlad ahaanba shaqada wanaagsan waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa labada agaasime ee had iyo goor u heelan inay had iyo goor report ka soo diyaariyaan wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ugu dambeyntiina wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka ee dowladda Puntland Cabdirashiid Cali Geelle ayaa waxa uu ugu baaqay hay'adaha ka shaqeeya wax ka qabashada dhibaatada ayaxa sida hay'adda FAO iyo dowladaha caalamka inay gacan ka geystaan sidii loo soo afjari lahaa ayaxa baabi'iyay beeraha Puntland iyo dhul daaqsimeedkii deegaanada Puntland isagoo ayaxaasi hadda gaaray deegaano kamid ah gobolka Gaardafuu ayaxani maaha markii ugu horeysay laakiin waxa laga yaabaa in ilaa bishii muddo 3 bilood laga joogo uu soo noqonayay wasaaradda deegaanka iyo beeraha iyo isbeddelka cimiladu tallaabooyin badan bay ka qaaday ribooddo badan bay ka diyaarisay iyadoo la wadaagaysa hay'adaha caalamiga ah iyo dawladaba runtii dhinacii hay'adaha caalamiga ah iyo qaybtan la dagaalanka ayaxa oo FAO wali still wax riboodan oo inaan riboodo u diro
qoraallo isdhaafsanna mayna laakiin wax aanu ka haynaa ma jirto hay-adaha caalamiga iyo kuwa kalena waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa inay nala soo gaaraan sidii diyaaradihii buufinta oo kale oo hadda aan isleenahay kolley meel baa jirtay lagu midaysan yahay oo la dagaalanka ayaxa marka waxaan sheegaynaa hay-adahaasi ama wadamada ku midaysan la dagaalanka ayaxa in si degdeg artaa wax looga qabto laanno ayaxu waxa weeyaan maalintu meel uu tago inuu dhirta xaalifiyo oo ukuna uu kaga tago سلام كبعدي وحنو مهد علينا UNFPA iyo dawladaha kan ama hay'adaha kala ku qoran ee ka qayb qaatay dhismaha kan aad iyo aad halgalka oo aad u wanaagsan waxaan ugu mahad celinaynaa waxaan rajaynayaa inay haddaanay ka dhisnayn in gobolladoo dhan la gaarsiiyo oo dawladda iyo maxay tahay iyo hay'aduhuba runtii aan ugu mahad celinayo waqtigooda ay geliyeen iyo awoodooda inay wax wanaagsan weeye inay gaarsiiyaan kale Puntland waxaan kale oo aan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dawladda Finland wakiilka dawladda Finland waanu ku casuumaynaa safiirka haddii aan la yidhi inuu yimaado halka kan inuu yimaado dawladda Finland anigu waxaan garanayaa runtii waa dawlad anigu dawladdii hore intaanay burburin waxaan garanayaa dhakhaatiir ka socota Finland oo wareegi jirtay dhulka oo especially TB-da iyo xinkaas ayay daaweyn jireen marka aad iyo aad baan ugu casuumaynaa aad iyo aad baan u jeclahay xiriir iyo wada shaqayn fiican wada yeelano intaa haddaan ka gudbo waxaan kula dardaarmayaa wasaaradda arrimaha shaqaalaha in sida uu sheegay wasiirku maintenance-kii iyo sustainability-gii in lagu hayo gacan ku haynta xarunta tan wanaagsan in sida ay tahay lagu hayo waxaan kale oo aad iyo aad ugu mahad celinayaa mahuraan band oo runtii dhalinyarada waxa taabatay oo cashar weyn halkan inooga dhigtay waxaan ka codsanayaa ama aan soo jeedin lahaa in la dhigo screen weyn oo maxay tahay ka sheekeynaya magafe tahriibta maxay tahay soo dadkan soo dhalinyarada u galayo in maxay tahay halkan la dhigo oo dhalinyaradu ay arkaan oo daawadaan oo ku cimro qaataan waqtiga inagu yar aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waxaa ka dhacay munaasabad wanaagsan aadna way farxad gelinaysaa dhismaha kan iyo maxay tahay dhalinyaradu runtii wasaaradda waxaan u sheegaynaa runtii wasaaraddu iyada ka wakiila dhalinyarada wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga iyo shaqadii shaqaalaha iyo wax oo dhanba shaqadii iyada haya wasaaradda
shaqadii iyagaa haya, dhallinyaradiina iyagaa haya. waxaan rajaynayaa inay priority number 1 inuu noqon karo dhallinyarada, waayo 75-70% waa dhallinyaro. waddankeennu dadka wax qaban karaa waa dhallinyaro, dadka wax bedeli karaa waa dhallinyaro. odayaasha qudhoodu ma hayna, laakiin odayaasha in lagu xanaanayo waxba kama qabo. in odayaasha la nasiyo, dhallinyarada doorkooda la siiyo. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.